waxaan higsanaynaa sanadkan inuu ilaahay nooga dhigo sanad wanaagsan oo khayr qaba inuu ilaahay nooga dhigo sanad aan ka shaqeyno dib u heshiisiinta ummadda Soomaaliyeed inuu ilaahay nooga dhigo sanad dib u dhis ah oo aan dalkeena dhisano inuu ilaahay nooga dhigo sanad dib u xoreyn ah oo aan dalkeena ka xoreyno qolooyinkan shayaadiinta ah oo al-shabaabka ah markaan leeyahay dib u heshiisiin waa wax ugu muhiimsan oo ummaddeena iyo shacabkeena ay naga sugayaan waxa ugu horeeyay dib u heshiisiin dhexdeena horta inay ka bilaabato waxaan rabaa inaan idin sheego oo xaqiiqo ah aqalka sare iyo golaha shacabka waxa loo baahan yahay dib u heshiisiintooda inaan bilaawno hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan hayaa warqad aqalka sare soo direen oo ay joojiyeen wada shaqeynta golaha shacabka sidii maxaan ku yiraahdaa dowlad goboleedyadii ay shaqada looga joojiyeen annaga marka hadda dhexdeena weeye weli waxaan u gelaynaa gudaheena wax alla wixii mugdi ah oo dhexdeena ku jira si aan ugu gudubno shacabkeena Soomaaliyeed wax kasta oo ay kala qabaan oo dhibaato ah oo hore u dhacday inaan ka shaqeyno sidii isugu soo dhawaan lahaayeen sidii gacmaha isugu qabsan lahaayeen dib u heshiisiin waarta inaan ka dhex dhigno hadduu Ilaahay yiraahdo meesha ka soo bilaabatay marka afar bood ka hor waxay ahayd markii kalfadhigan furmayay oo aan ka hadlaynay inaan furno joint session labada aqalka sare iyo golaha shacabka inay lahaadaan joint session oo anigu aan ka qodbeeyo last minute habeenkii ugu dambeeyay yaa aqalka sare waxay yiraahdeen annaga golaha shacabka meel la fariisan mayno waxaan u yeeray gudoomiyaha maxamed mursal iyo maxaan ku yiraahdaa